kulan sanadeedka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo labadii maalin ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ugu soconaya golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku soo xiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. kulankan oo intiisa badan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku soo bandhigeen waxqabadkooda ku aadan sanadka dhamaadka ee 2018 iyo qorshayaasha siyaasadeed ee u degsan sanadka soo aadan ee 2019. Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku amaanay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya kaalinta lixaad leh ay ka qaadanayaan sidii dalka Soomaaliya uu gaari lahaa isku filnaansho dhan walba leh. waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad saaka 8 barkii bilowdeen shaqo oo weli aad haysaan runtii energy aad u badan oo rabtaan inaad ku sii doodaan iyada lafteeda ayaa waxay ka turjumaysaa dalku inuu rajo leeyahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna uu iftiimaayo idinkana waa idinkaga mahad celinayaa arrinkaas isaga ah. Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qodobada dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay xiritaanka kulanka sanadlaha ee golaha wasiirada ayaa waxa uu ku amray golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya in ay qayb ka qaataan dagaalka ka dhanka ah ee lagu jiro musuqmaasuqa. saacada dheer laba maalmood oo dood ah oo qalbiyada aan isu furnay oo aan ka wada hadalnay xagee baan joognaa maxaan qabanay maxaan noo qabsoomay maxaan naga qaldamay waxaan noo soo baxay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay haddii aan rabno inaan dalka dib u dhisno dunida la tartanno kobcino dhaqaalaha ka shaqeyno siyaasadda loo dhan yahay gaarna meesha aan rabno adduunyadu si ay dib noogu aaminto aan noqono Soomaaliyada dadka u soo halgamay ay hiigsanayeen waxaan hortaagan caqabado badan laakiin albaabka ugu horeeya oo ay ku jirto caqabada ugu horeysa waa albaabka la yiraahdo musuqmaasuq aafeeyay ummadda Soomaaliyeed. waxaan aad ugu faraxsanahay inay golaha wasiirada halkan jooga isla qaateen inaan loo dul qaadan musuqmaasuq in kulligeen inagoo wada jirna aan noqono koox jihaadka ugu horeysa ku qaada musuqmaasuqa go'aankaas inaan isla qaadanay waa ku mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inuu dalka wax ka bedeli doono haddii aan ka dhamayno waana ka shaqeyn doonaa anigu intaan ra'iisul wasaaraha ahay maalintii aan shaqada bilaabay ayaan idin sheegay la dagaalanka musuqmaasuqu inuu yahay ahmiyadda koowaad sababtu waxa ay tahay dalkan si la isugu keeno si wax looga qabto midnimada ummadda Soomaaliyeed si wax looga qabto horumarka si 15 milyan oo Soomaaliyeed ay u helaan nolosha ay xaq u leeyihiin laba aqbali karo qof iyo labo ama koox kooban inay u leexiso dariiqa ay rabto lama aqbali karo musuqmaasuq uu noqdo wiilashii gabdhaha Soomaaliyeed oo hadda dhashay mustaqbalkooda inuu mugdi ka dhigo si taariikhdu ay noo qorto mustaqbal ummadeena ay u yeelato waa laga maarmaan marka inaan musuqmaasuq wax ka qaban. sanad waliba dhamaadkiisa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay isku yimaadaan kulan ay kaga arinsanayaan howlihii u qabsoomay sanadka dhamaadka ah iyo dejinta howlaha waxqabada ee sanadka kale ee soo aadan. Mustafa Xasan Cabdi wararka TV-ga STN magaalada caasimadda ee Muqdisho.